السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا لبنت برشة ما أنت وحنا مرتين نوعه الله بريحية أحمد يوسف والله يقانو بوبيرة إن الله بريحية وحن كل شيء كيسن دونا إن قيب كم بده منسوي كيسة ومنسوي بدأ يتري لكن قيب كم بده سوق عدن دونا أنا أقول رجينا إن برنامج كلا عن صدق كلا كعزونا سي أنت دائما ونقول مصر ودي سرية سامحه أو حيابان كل شيء كيسن إنه حكم بده منسويين isugu jira wadaniyad jacayl dhiirigelinta laftigeeda waxyaabo uu ka curiyay ayaan ma aragtay isdul taagi doonaa marka hore ila soo dhaweeya Alaabur Yaxye Axmed Yuusuf Yaxye soo dhaw labeenta bulshada inaad marti ku tahay sharaf ay noo tahay waa mahadsantahay saaxiib Ibrahim anigana sharaf ay tahay waan ku faraxsanahay inaan caawa marti ku ahay labeenta bulshada waan dhawahay saaxiib aad iyo aad ma ku dhib qabtaa finan haaro jirka oo ku gaduuta ama qalala xalka dhabta ah waxa idin haysa BQ Cosmetics waxaad ka helaysaa kareemo tayo leh oo dabiici ah laguna sameeyo Yurub saliidda timaha ayaa sidoo kale ka helaysaan wixii faahfaahin kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda Yaxye markii hal abuur la yiraahdo dadku inta badan waxa ku soo dhaca maansooyin kala jaad ah mar gabayo mar waajiifto mar badno Yaxye dhankeebu u badan yahay ma gabayadu u badan yahay ma jiiftadu u badan yahay maansooyinkiisa dhankiisa u badan yahay waa mahadsantahay marka Ibrahim horta aniga shakhsi ahaantayda suugaanta aan curiyo markii aan curinayo aniga yani waqti uma qaato ama madanayo godka aan ka curinayo iyo xarafka aan qaadanayo markasta xaaladii ku xiran tahay aan ka sameeynayo ma sha Allah caawa halkan miiska waxa noo saaran wadaniyadii erayadka curisay sax jacaylka laftigiisa aad iyo aad halkan waxaan ka arkaa ammaan dumar aan ka arkaa gabdho badan oo daawanaa way jeclaan doonaan in la amaano sax iyo sidoo kale dhiirigelinta oo naftuna shidaal bay u baahan tahay aad iyo aad kaaga mahad celinayna qaarankaas inaad maaragtay suugaanta ku darsatay midda ugu horeyso on jeclaan lahaa daawadayaal badan oo ila jecelna inayna daawanaan rajeynaya waxay tahay maanse la yidhaha muqdisho iyo qisadeedii iyo goortaad curisay Ibrahim waa mahadsantahay horta muqdisho waa maanse aan curiyay 19 sababtaan maansada muqdisho curiyana waxay tahay bahalka la yiraahdo maska Ibrahim in la dilo markii la rabo waxa la sameeyaa madaxa laga dilaa waa saxanta muqdishona ummadda Soomaaliyeed ama qowmiyadda Soomaaliyeed markii loo eego mudantoodii ama madaxdoodii muqdisho waay aad iyo aad marka inta Soomaaliga dhex baxo la soo fiiriyo macnaha waa sax marka cadawga shisheeyaha iyo cid kasta markaas banaanka naga joogtana markii ay damcaan inay Soomaali dhibaateeyaan meesha ugu horeysay la damcaan hagadaamada waxa waaye magaalada muqdisho waxaa kaloo jira dad Soomaali ah oo dalka ku sugan laftigooda ay dhibayso yani inay maxaa leedahay Soomaali ay maxaa leedahay istaagto ama ay midowdo ayagoo dana kale markaas kale aad iyo aad muqdisho 2019 ka curisay dabcan waxa ay ku soo biyo shubanaysaa in madaxii la ilaashado san maaragtay isha door go'in shakhsiyan aniga abaalka aan muqdisho u celi karaa waxay tahay inaan hibadeyda aan iyada mudnaanteeda ku qiro ma sha Allah dhibaatooyinka ay soo martana aan u sheego inaan u ogsoonahay aad iyo aad wax ugu yaraan muqdisho sameyn kara intaas waa ma sha Allah waa rajeynayna marka waxaan sugaynaa maansada muqdisho soo dhow waa mahadsantahay maxay leedahay waxay ku bilaabanaysaa muqdisho ay malicdaay maamadii dalkaygaay mahuraankii noloshiyo meel la dega adduunkaba halkii ugu mudnayd ee maankayga deeqdaay muqdisho ay malicdaay naftu meesha jamataay muraayadii dalkeeniyo musbaaxno ifaayo ka dhex muuqda Afrika muqdisho ay malicdaay magaaladii dulqaadkaay adigoo mushkilad iyo madfac la isku tuuriyo miinada qarxaysiyo muran aan dhamaanayn muqdisho ay indooriyo marti geliyay waa badan taan minutes dhiibine maqaamkii daraatiyo mansabkay lahayd bari mar kale eeto xanataay muqdisho ay malicdaay ruuxa ay ku maran tahay qabyaaladi umalab tahay miidiyaha kolkii oo weeraha mataataca kuu mariyo maangaab adigaa ka maarmo midna aanay kaa dhibin muqdisho ay malicdaay jawiga macaan iyo muujadaada gaarka ah
kolkii aan maquurtay maskaxdaydu dihataa maansooyin curisaa miinleyda tirisaa markay doonta deeley gabayada miisaanka leh fariimaha u marisaa kolba meesha lala rabo maasha allah muqdishaay malleecdaay inta maanka kaa nacab muuqaagu uu dhibo dabinkuu maleegoo kula jecel musiibada mar kastay ahaataba ma helaan libtoodoo mawlahaygu kaa qari salaam halkaas ayay ku eg tahay maansada guusha cajiib runtii waa maanso aad u qiimo badan oo dhaxalgal ah runtii waxaanan ayba ku habboon tahay in koox loo dhiibo yaa oo ay maaragtay isla helaan jiibta isla helaan sax waa markaasoo kale qiiradu way sii kordhaysaa moogtahay aad iyo aad hadda waa ereyo runtii aad u culus aad u macaan badan marka luuq iyo laxan la saarana oo dabcan kooxa intay halka soo safato qoloba markooda ay qaadayso cajaa'ibteeday leedahay weliba anigu dadka way ii kala yihiin moogtahay sax laxamada markay timaado dadaan aad u jecelaha jiro aad iyo aad oo laxamadooda marka ay laxamada samaynayaan laxan walbay sameeyaan midba midka kale iiga daran yahay iyo waxaa jira kooxo haddii halkan ay soo istaagaan ereyo walba oo ay masraxa la yimaadaan macno weyn u sameeyo aad ii taabto ka adiga ahaan laxan markay noqoto yaad jeclaan lahayd inaad u dhiibto bal ereyadan u laxan saaro ereyada soo yacni jiilkii jiilkan hadda laxan mistaha cusuba masala waxaan isku daraynaa kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwa maanta midun kasoo dhex qabo wallaahi in hadda kadib maskaxdii dib u celiya noqonay taas anaa waxaan kusoo bandhigaya saddex ay jiilkii horena qof baan kasoo qabsanayna ay jiilka dhexena qof baan kasoo qabsanayna ay jiilka maantana qof baan kasoo qabsanayna jiilkii hore waxaan kaaga soo qabtay allah u naxariistay maxamed suleyman tuwe jiilka dhexe waxaan kaaga soo qabtay maxamed xasan xuseen lafool oo aad u jecel aad iyo aad jiilka dambena waxaan kaaga soo qabtay mutolow jiilka dambe yaa ka soo qabtaa jiilka dambe markay laxan timaado iyo waxaa jira fanaan aan aad u jecelahay laakiinse xanuunsan ilaaha caafiyo amiin joogle aad iyo aad caafimaad tama urjeynaa laakiin joogle waa jiilkii jiilkii dhexe dhexe waa khaldamee jiilkii dhexe u ahaa asoo yar oo hees maaragta hooyo tirinaayo ayaa jirtay ma dhawa ninkaasi waa ku khaldamay waa bedelaynaa marka sax waxaan ku bedelaynaa nimcaan hilaac allah naxariiste tubaac la foole iyo nimca hilaac ha doorasho la-aan la foolan dooran lahaa macnaa aniguna cid kale markaas aanan cajaa'ibteeday leedahay la foole waa ereyada loo dhiiba inta badan isagaa laxan ka saaray ha weliba heesiisa waxaan ugu jecelahay hees la yidhaha heesta taar ha aaday ii taabataaniyo heesiisu dhanaaba waxay yihiin heeso dareen taaba ha gudbinaayo maxaa la yidhahdaa aad iyo qsooyin iyo aan kugu sii daray waxaan lasii jeclaan lahaa kooxda la yidhaahdo waa beri waa beri inay safka inta lasoo istaagaan heesta muqdishaay ma leecdaay ay ka dhawaajiyaan markii hadda loo eego kooxaha dhisan waa kooxda keliya anigu aan daawado oo maxaa la yidhahdaa weli way taagan tahay yani maamuuskoodii magacii waa jiraa aad iyo aad muqdisho halkaas kaga gudbaynaa muqdisho waa maamustay ereyo macaan u samaysay dhaxalgal ah runtii aadna uga helay aniga ahaan dad badan oo na daawanayo kumanaan ahan ay ka heli doonaan waxaa jirta gabay kaloo aad ka samaysay falastiin oo gurmad la yiraahdo oo laftigii aan ku fasaxay gumaad haye aad iyo aad gumaad raalli noqo waa qalday gumaad bal xilligaa aad tirisay iyo xaaladaha markaas lagu jiray iyo dabcan waa dareen hadashay bal gumaad qisadiisa ibraahim gumaad waxaan tiriyey Oktoobar 2023 sanadkan hadda aan kasoo gudubnay waxaan tiriyey habeenkii maxaa la yidhahdaa ilmihii yaryarka ee isbitaalka qaarna lagu daaweynayo qaarna ay kabaad ka dhiganayeen markii lagu sii daray la duqay kumanaan meeshaas ay ku qurbaxeen Falastiin runtii yuhuuddu kaliya lama dagaalaysto reer galbeed oo dhan la dagaalaa safkooda jira oo weli aan gambanaynin halkii marka ay ahayd muslimiintii ayaguna markaasi ku diinta iyo ku dhiigga ahaa inay la saftaan xitaa waxay ka xishoodeen inay xataa cambaarayaan ay dhahaan waan ka soo horjeednaa
tanoo Soomaali ahaan iska tabayarnaaba laakiin quwadaha kale Carbeed ee dariska la ah way ku dhiiri waayeen inay ka hadlaan marka waa lagu goobtaan dhihi karnaa Falastiin xitaa xagga warbaahinta aad iyo aad oo waxaa arkaysaa dadka qaar ka hadla xataa Soomaali ka hadashaa jirto oo barnaamijyo ka diyaariyay in beejashkooda la weeraro adduunka kalena sidoo kale dabcan ay jiraan marka gabayga maxaa la yiraahdaa gumaad marka aniguna si bareer ahaan waxaan u sheegaa wax meeshaas ka dhacay iyo sidaad uga damqatay dabcan ha haye loogu dhufo wuxuu leeyahay guud ahaan Ameerika iyo kuwa Yurubta gowriira gees iyo ilaa maaka gees gaalka wada jooga garabkooda weeyaan yuhuud mana gambaayaan go'aankoodu wuxuu yahay haddaan idin garwaaqsiiyo xagga maarto Falastiin ayay tala ku gooyeen xagga maarto Falastiin ayay tala ku gooyeen go'aankoodu wuxuu yahay haddaan idin garwaaqsiiyo xagga maarto Falastiin ayay tala ku gooyeen waxay uba gabraarteen inay gabagabeeyaan cadad ma leh intii ay gubeen ama gumaadeen gumadkii kuwii ay jareen gees kastaba jiirka goortii daryeel iyo la rabay caymis lala gaaro garnayl bay ku sii ganahayeen wada gariiraahe kumanaan ayay gowraceen goob un wada yaale galaclaynta dhiiggaa ka badan webi ganaanaaye gantaalihiina way dhacahayaan galabta maantaahe guryahoodii waa tay dumeen gabi ahaantoodii gasiinkiina waatuu kufrigu gooyi waa hore waxaa arkaysaa xataa in meel loo soo mariyo la waayay cuntadii wuxuu leeyahay gurmad iyo ma haystaan rabbow garab la sheegay muslim uma gargaariyo kuwii geesh ka sugayeen gambashay ka doorbidahayaan guluf colaadeed diiwaanka waxaa haatan galay waa gunimo weyn wax la isweydii doono runtii kol haddaan walaal marka maadaama isgarab haysan ilaahay inaan u baryaan gala marka kol haddaan walaal gaara iyo gacal u soo heelin gaza iyo haddii aan aqsaba gaalka laga ciirin gumaadkoodu wuu soconayaa iyo gumaysugiyo geesiyada rabbuu diriraya gogol ka dheeraada gurmadkaaga bay sugahayaan guula kaligaaye adigaan gargaar iyo rabbow garab u weynayne gardaroolayaashiiyo casis cadowga gaashaaman cibrigooda soo gaabisaa ama gabawartaaba dhulgariir kulaysaa rabbow madaxa goysaaba ama cudur ku gaaftaa kurtood gabagabaysaaba guudkeeda dunidan rabbow goor un laga waayo marka intaan tiri karnaa inaan habaarnaa ayaan ku soo ururinay aad iyo aad runtii waa gabay aad u qiimo badan oo gumaad waxaan rajaynayaa haddii si uun loo turjumi karo aad bay u fiicnaan lahayd in fariintaasi ay gaaraan walaalaheen Falastiin waana la gubatay waana maaragtay la dareen noqotay xaqiiqdii waana nagu matashay gabaygaas xilliyada dabcan waa isugu kaamid xilliga ma aragtay dhacdadu taagan tahay iyo marka laga soo gudbay iyo markaad u baahatay inaad wax ka tariso macnaha waqtiga xaaladda aan ka curnayo inay taagan tahay in laga soo gudbay waqti dheer horta isku mid lama dhihi karo shaygan markaa curnaysid waxay ku xiran tahay sida uu kuu saameeyo oo adiga kula falgelayo markaas mararka qaar waxaa arkaysaa Ibraahimow inaad maanso aad u qurux badan aad tirisid kadibna qofku yidhahdo maanso ii soo tirini waxaad ka hadlayso isla markaana aad wax qabla aad tiri weyso marka sababtoo malaha adaan diyaar u ahayn macnaha wuxuu adiga kulama falgashana mogta marka miisaankii iyo xarafraaciga yani waa taqaanaa intaas markasta waa samayn kartaa laakiin muhiimadda iyo dulucda iyo murtida meesha ku jirta intaasaa muhiima marka aniga badanaa waxay ku xiran tahay sida xaaladdu markaas ay la falgashan tahay aniga waxaa nin saaxiibkii oo buurab anagoo joogna hadda ka hor waxaa laga joogaa hadda 8 sano laga joogaa aad iyo aad marka waxaa la isweydiinayay niyo goormeed wax orisaa iyo wax saasa la isweydiinayay waqti marka wuxuu yiri riyo anuu markaan u baahdo inaan wax oriyo waxbaan akhriyaa yani buug baan akhriyaa ama sheekaan akhriyaa markaasoo kale maskaxda cariyaa ku wada carcariskaasaaba wax ku oriya aad iyo aad taasuna meeshii ku jirtay laftigeeda
maansada gabayga gumaad halkaasaan ugu gudbaynaa goordhow ah waxaan tegaynaa arrimihii jacaylka laakiin bal jacaylka intaan la yar gaarin aad iyo aad waxaan tegaynaa in yaroo dhiirigelina xoogaa waa saaxiibadana shidaalaa loo siinayna baahan yahay annaguna shidaala qaadanaynaa Mm. waxaa jirta maanse la yidhaha higsi aad iyo aad higsi bal qisadayda nooga dhac higsi ibraahimow laba qiso isku dhafan ayay leedahay ayay ka curatay waaya labada qisaba waa u baahannahay wax yimid asaba ah aad iyo aad horta maasta maase dhiirigelin ah si fiican labada qisana waa haddii aan ah mid ku hormaro hadda ka hor waagii aan jaamacadda dhiganayo sanadkii labaad anigoo dhiganaya waxaa dhacday facultiga caafimaadkan waa fakulti aad u dhib badan baranaynay mashquul badan aad iyo aad haye marka mararka qaar waxaa ogtahay sanadaha koowaad jaamacadda in ardada isku facultiga ah inay maadooyinka qaar wada qaataan si sheerin ah intaanan la dhul kala saaray takhasuska la aadin takhasuska laba sano maadooyinka qaar yani way kala qaadanayaan qaarna way isla qaadanayaan laba sano kadib laba sano dambena yani isku shaqa maaha marka aad iyo aad marka sanadkii labaad ee jaamacaddan dhiganayna semester 3 ahayn markaas marka waxaa dhacday in maalin maalmaha kamid oo maalmihii sharinka annagoo 3 fasal ah in hoolka jaamacadda la isku keengeeyey si fiican si aan maado markaas nawada qusaysay aan u qaadan si fiican marka macallin markaas jaamacadda ku cusbaay oo maado kamid ah maadooyinkaas caafimaadka noo dhigay dhowr boqol iyo dhowr ardayna waa ahayn mogta ah markaas wuxuu yiri intiinan ma caafimaad barataan waxay sidii ugu horeysay noo soo gal ah ها حوري أكتين وري إن أرض أو بدن سنة كسر جامعة كقلنا جبس إن عافمات برتين ها عندنا أديات حكلونا يري أكتين أرض أو بدن شغال أنت مقالة شمان تقوى إن يجين أرض عافمات كبرت ها عندنا طبعا وقلنا تاسن مركز ده هذا وحنا يري أكتين أديات أدينك حتى قلنا جبسين برتو إن أرض شغال أنت أتوبير دونتان marka dabcan kama filinaysid macalinkaaga inuu ku niyijibiyo Ibraahim oo ku yiraahdo marka jaamacadda dhamaysto shaqo la'aan aad noqon doontaa ma qurux badna ha waa laga qurux badna qofkii inuu ku dhiso aad yani naawileysid markii uu ku dhantaalo aad wax nu badanta marka taas waxaan dhahnay waa qeybaan dhahnay waxay ku xirantaa dhahnay nasiibkeena iyo sidaan u dadaalno howlahaaga ma taas waana rajaynaynaa dhahnay inaan shaqo helno wayna dhacdo Ibraahim waa anigoo weli jaamacadda dhameyn inaad fursad hesho inaan anigu fursad shaqo helo shaqo bilaab ajiib ma sha Allah marka laakiin waa niyad runtii waa niyad runtii macnaha aad ii gubtay dhowr habeen aan waqti u lulo marka waxaan sirnay macalinku maxuu sidaas u sameeyay ha maxaa ka qaldan ha meeshuu idinka dhiirin lahaa ya aad iyo taas waa fahmay waxaa dhacday marka in taas waa qisadaas waxaa kaloo jirto qiso kale Ibraahim aad iyo anagoo anshaxa ilaalinayn oo xeerinay waa aad iyo shakhsiyaadka ma sheegi doono laakiin dhacdadan sheegi doono inaan sheegno muhiim ah waa ha dhacdadun baa ka qaaday dhacdada muhiim ah si fiican waxaa dhacday isla 19 kaas ahayd maansaan curiyey Ibraahim si fiican waxaan sameeyey markaan curiyey meel aan ku baahiyo inaan helo ayaad u baahatay ayaan u baahday waan raadiyey marka nin markaas isagu dhalinyarada hal abuurka sidoo kale taa maasooyinka qabanaya qof ugu xiray si fiican ninka uu la soo hadlay wuxuu yiri maasada ii soo dir WhatsApp-ka aan u diray si fiican maasadan ku akhriyo arkay maasadan inaan horta koow aysan maasadan jacbur iyo yani ahayn wax lagu qoslo inaysan ahayn oo yani haddana yani qofka tirinayana yani usan haddii birita laga duubo usan dumar ahayn markii uu arkay wuxuu isiri niyow waxaa waaye anigana ima dhihin asigaa isdhahay dana kuguma jirta ninkan maasada ka qabato macnaha asigu dantiisa iyo fiyuskiisu ka hadlay maasaduna yani murti ahaan way ka murti badneedaan dhihi karaa Ibraahim oo ku duubay laakiin asigu Soomaalidu badanaa murtida waa inaan daba qiimeyso maqto maxaa entertainmentiga iyo waxyaabahaas ay marka maansooyinka uu asigana duubayay kuwa waxay ahaayeen oo markaas ayagu ahaay silsiladay ahaayeen oo markaas qaab kaftana marka waxaa dhacday ninkii go'aan iska qaatay
asbuuc kadib aan ku celiyay ninkii waxaan dhahay nin ku sugayay maxaa ugu dhac si fiican markaasuu wuxuu yidhi nin $30 lacag inaa lillahi wa inaa ayaan ku doobnaa marka $30 lacag aan dhiibtid waa si fiican qofkii ninkaas odagaa u tagay dhahday $30 ima sheegine maxaa say wax wadaa oo $30 meel kasta lagu duubaa waa la tigi karaa iyo ka yarba waa la heli karaa macnaha ma si wax jiraan maya anigu intaasaan ku shaqeynaa haddii aadan diyaar u ahayn waa raali noqo camal waa halis aad u weyn wax hore u socdayna marka maanta sida aniga iigu fududaa inaan wax duubanayo ha markaas way adkayd xaaladda ha way adkeedo fursada maanta la helaayo raano lama helaynin markaas aad iyo aad beentaa ma waxaa dhacday marka inaan qofkii igu xiray aan ku laabto aan idhaahdo sidaas uu ninkii odagaa yiri kadib pressure la saaray kadib ugu soo laabtay maa sida aan kaa duubo yiri laakiin shakhsiyan oo ii cunto moysay wax shalay ku xijiyey maanta inaan maxaa la yidhahdaa bis taasna yacni runtii xanuunkeeda leedahay adoo haddana wixii hami u leh ha haddana xiisadii taagan tahay oo niyadjab ay noqoto mararka qaar waxaan siri wani maad iska dhaaftaa wani waxaan suugaanta dhanba waa ka caadiyan ugu niyad jabay laakiin dhowr jeerna kan waa isku dayay inaan maxaa la yidhahdaa iska dhaafaba laakiin kulama tashanayso macnaha hibadu kulama tashanayso dareenkiigaan kaa ogolaanaynin qofku waxaa la dhihi karaa waa inuu maxaa la yidhahdaa qofku markuu fanaan yahay fanka inuu iska dhaafi karaa inuu hiiso laakiin markuu wax curiyo dadka inuu la wadaago iska dayi karaa laakiin inuu isagoo curiyo ibraahimow ma joojin kara taas mararka qaar waxaa waaye xanuuna waxaa jiraba oo daawo u tahay inaan wax curiso si kale aadan ku nafisaysid aad iyo aad mararka qaar ma dhacdaa intaad wax curisid markaad wax curisid aad dareemaysid hurdo macaan inaad helaysid yacni jirkaagu raaxaysanayo oo hurdada markaas aad hurdana hurdooyinka kale ay ka duwanta ha maansooyin badan oo hadda aan soo wadaaba ku hurdaba anigoo markaad curisid markaan curiyaa aad iyo aad aan ku hurdaba anigoo hurdi la aad iyo aad aad iyo aad leeb badan laba badan ugu taagnaa ayay kaa fujisay ayay ka fujiyaan marka waxaan dhihi karnaa waa dawo dabiiciya aad iyo aad aad iyo aad hiigsi maxay leedahay hiigsi qisooyinkeeda hiigsi marka qisooyinkeeda kuwaas marka intaanan maansada usii gelin horta maansa dhiirigelina marka badanaa dhiirigeliya dadka wax dhiirigeliya soomaalida marka wax dhiirigelinayaan dadka waxay dhahaan waxaas waa samayn kartaa laakiin caqabada ka hor imaan karo qofkaas ama wax uu beri la kulmi karo uma sheegaan taas marka waxay sababaysaa qofka inuu isku qaado oo waxa bartamaha kala kulmaana marka asigoo aan ogeyn caqabadii markuu caqabadii madax la galo qofka inuu dib usoo laabto ka niyad jabo inuu marka maansadu way kooban tahay laakiin saddex ay u qaybsan tahay qaybta koobaad ayagaan kala mid ah oo waa samayn kartaa يعني واسمين كرتا مركب لك أذبحي واسمين كرتا الجوده وإن عندنا كل شيء عقبة وضد تعال ما جيت كوحات كل شيء كل مكرت كدي مركي سيدا أو تلقى شيء ده وأتوقع أقصي قاعد عقبة مركي عن كل شيء وعندنا عقبة لك كل أنتو عندنا سيدا أقصي في العلة هذا أقصي سؤال هذا لا يول كاي كاريس أسمع له هذا إن كل شيء سلوبتي لو بعنا ها كمان صدق واي سفي عن عادي إبراهيم أنا سوغانتي سدح مك لو قيبي قيب كميدا dhiirigelintaasi qaabilsan tahay u badan tahay marka sababta marka adana dhiirigelinta ayadoo u badan ma jecel inaan si khiyaari dadku u dhiirigeliyo si waaqaca markaas la falgalayso qofkaas waxaas jira inaan dhaho sidaas aan fiican waana runta oo hadda meeshada adigu ka gubanayso ama ka cararayso ee ah in bulshadii ay ku soo bateen waad kici kartaa waad boodi kartaa waad ku fikirtaa kadibna waad jabi kartaa markii dambe waxayba noqotay in lagu maadsado oo qofkii xitaa waxaa laga yaabaa qof waddadaas aanan haynin oo waddo kala haayo laakiin ummaddii raba inuu dhiirigeliyo xitaa lagala hortagay isla erayadii laftigooda lagala hortagaa wixii iska daayay iyadoo lagu foodayn marka way tahay in bal wejigaas la bedelo dariiqaas dadka runta loo sheego waa ku saxantaa 100% higsi aan u gudagalaynaa marka maxay leedahay higsi waxay leedahay Ibrahim hadduu hamigaagu hal door yahay heedha inaad u horeyso halyeyga ahaato hogaamiye koonkan haddaad dhab u doonto hubaal waad gaari hayinka orkaaga halkaad hiryadiisa ku furhamihiisa niyadda aad ku hayso haddaadan ka baaqsan amaad hawl yaraynin hurdada ku fogaanin hubaal waad gaari war hooy ha ilaawin bartaad hiigsanayso hog baa ka sokeeya waxaa hoganaya ogow hala qoodha adigu has dhiibin hortaada un fiiri gadaal haba eegin haddaad ordi weydo
socdaalka ha joojin macnaha haddii kugu adkaato xaaladdu inaad orado ha ha niyajabina nooti ka soco soco ha aad iyo aad hinqoo ha fadhiidin dadaalka ha baajin ha qarin hibadaada ha quuri naftaada marnaba hooseynta aad iyo haddaad istiraahdo in baa ku hafraysa adiga ku hodaysa waxaa jira ibraahino dad markii guul yar ay gaaraan ha waa lagu dhagaa aad iyo markaas waxay leeyihiin horumarkaygaa lagu xun yahay aad iyo aad ha marka wax marka sax iyo wax qalad inta waa lagaa sheegaa marka waxaan ku leeyahay haddaad istiraahdo in baa ku hafraysa adiga ku hodaysa halista kula doonta jecelna hooggaaga intii hal adayga halyeynimadaada iyagu ka hinaas adoon haqu muuji habaarna u geysa hadalka nacabkaaga ka tuur haadaanta aad iyo aad beeni ha aad iyo aad cajaa'ib waxaan waxba ahayn ka soo qaad aad iyo aad hiigsina waa taas waxaan aad uga helay waa runoo dadku marka ay waaba sunnaha nolosha aad iyo aad in tallaabooyinka aad qaadayso ama meesha aad maaragtay hawsha ka qabanayso ama guusha ka soo weyday in xoogaa challenge aad la kulanto waa sunnaha nolosha inta kusoo gabagabaysa cajiiba marka yacni in dadkaas waxoogaa ku challenge garaynayo inaa hadalkooda beenisid ayagoon waxba ku dhihin banaan ka soo qaad exactly ha waa si asluubaysanna wayba tahayba marka xigmadna waxay jirahdaaba haddii in lagu wax lagaa sheego ama lagu mucaarado haddii aanan rabin ha waxba ha samaynin dhaqaaqin ha oo markaas qof wax samaynaa maba tiid waxyaabaa challenge keenaya waa inaad micno samayso wax saxa samaynaysid ha aad iyo aad hiigsi runtii waxaan filayaa in badan oo annaga naga mid ah inaan maaragtay aan adeegsan doono shidaalna ka dhigan doono haddii uu sarreeya saamaxo halkaas waxaan uga yara nasanaynaa dhiirigelintii waa usoo laaban doonaa laakiin aad iyo aad dhiirigelintu waxaa waaye dadka inta badan buu aad ay u jecel yihiin waana shidaal runtii aan laga maarmin oo si maalinlaha loogu baahan yahay aad iyo aad markan waxaan isdul yara istaagaynaa bal ammaantii iyo jacaylkii iyo arrimahaasaan tegaynaa waxaa jirtay maanso aad ii soo jiidato la yidhaha naciimo ha naciimo dabcan qisooyinka qaarna saaxiibaad ka samaysaa ha oo waxyaabaha kugu hareereysan bal naciimo qisadeeda iyo maxay leedahay ibraahim waa mahadsan tahay horta naciimo shaksi ma ahan horta aad iyo aad oo aan ugu talagalay macnaha gabar naciimo la yiraahdo anigu lama hadlaynin ha waa humaag ha aad iyo aad marka anigu gabadhii marka anigu aan rabi lahaa inaan nolol ila wadaagto ha ayaan kula hadlayaa anu maansadaan dadku naciimada isweydiiyaan aan isweydiiyinbe maansada xarafka ka socotaa wuxuu yahay na ha marka aad iyo aad markan xarfaan ka bilowdo markii favorite aniga waxaa i ah naciima ka mid a marka saas darteed aan u qaatay naciimada hadda waxaan usoo qaadanaynaa marka gabdhuhu dhan gabdhaha soomaalida oo dhan ayaan leenahay gabar kasta waxaan leenahay naciimo ku bedelo magacaaga meesha naciima ay ku qoran tahay aad iyo aad aad iyo aad hay waa ka laakiin anigu gabadhii markaan still aan waxaa waaye aan sugaayey in nolol aan wadaagno ha haddii ilaahay qadaray aan rabi lahaa ha taasaan marka aniga kula hadlayaa marka waa aad iyo aad markii aan intaan ayadan ammaanayaa ha kadib markii aan helo sidii macnaha ujeedkaad u dhaqmi lahaynna waa ahaa waa ka dambaysaa ah hay naciimo maxay leedahay marka waxaan leeyahay naciimay naruuraay nalka maanka daaraay rays iyo naqdooglaay nasab iyo gobaadey neecaaw udgoon iyo nasri eebba bixiyaay noolaha midii aan keli naadinayey naftu baafinaysiiyo mid ku naban hiddaydo naab looga dhigay iyo nudahayga beerkaay niyaddaydu ruuxday muddo naawilaysiyo nus ka dhiman naftaydoo nabdigaygu tabayaay sanku neeflahoo idil naqshadeeda tii aan nafar kale la siin iyo ifka naadirkeedaay rucub iyo nabaadey neecaaw udgoon iyo rucub iyo nabaadey nimco aan dhammaan iyo miro nuucba jaadoo nawaaxiga shabeeliyo nugaal iyo ka baxay meel naftu muuhanaysaay naxli ruux ka dheeroo xinka laga nadiifshiyo dheerisada namiimkaay xinka laga nadiifshay ha dheerisada namiimkaay anaa waa qof haddii aad ka tagta xataa aan lagu dabamari karin oo lagu diri karin mogta aad iyo aad naruuriya agtaada nolol laga helaayo nuurkaagu inan yahay waa nujuum ifayso adigaani yaa yiro naftaydana ku beero waad igu dhex nooshee inta aanu naabnaab
iga dhiginin liito caashiq inaafayn sidaan kuugu nugulahay adiguna nitaaqiyo weeraha nuxuusta leh iga dhowr naciimay ashqaraar nuubiyad iftiinto aragga nuubiyadaa dad badan weydiiyeen haye muxuu ka dhigaya marka inaan fursadaan caawa haystaa marka inaan sheego Haye. nuubiyad waxaa la yidhaahdaa oo anigu aqaanaa haddii la baarana lasoo helayaa waxaa anigu shaksiyan ula baxaanan ahayn nalalka laga taago meelaha xeebaha iyo si markaas maraakiibta ama diyaaradaha kale tii loogu hago aad iyo aad ayaa la yidhaahdaa aad iyo aad si fiican waa dareemi karaa inay fasiraadaasi ku filan tahay odayaasha nuubiyad iftiintoo nafta raali gelisaay waxaa nolol riyaaq liyahoodii nasiib hela ninkaad ooridiisa iyo xaaskiisa noqotood u nuujisa ciyaal badan nagi kula ahaado subax nool ka soo kaca guri aad ku nooshay ya salaam ya salaam intaasi waa ammaantii u darneed oo macnaha waa waxba looma reebana oo maneer marka waa lagu sugayaa laynana weli weli waa la sugayaa soo ma aad iyo aad waa tanna hore u sheegno naciimadaasi waxay ka dhigan tahay gabdhaha Soomaaliyeed magac kasto nasray noqon kartaa najmay noqon kartaa caaishay noqon kartaa aad iyo aad magac kasta waxaa aad uga helay hoga tusaaleynta abwaaniinta Soomaaliyeed waa la kala qaaday moogtahay sax waxaa la yidhi qaar baa waxay aad ugu dheereeyaan hoga tusaaleynta maansada marka ay bilaabayaan hoga tusaaleyntaas cajiib ashqaraar waxyaabaha ay sawirayaan allaha u naxariistee waxaa ka mid a dadka lasoo hadal qaado hadraawi baa ka mid a xasan geni aa ka mid a ha ka reebin barre maxamed fiido barleento ashqaraar cajiiba isaguna ah adiga ahaan markii la yiraahdo hoga tusaaleyntaas yaad kaga dayataa ma saddexdaas miyaad intaa tusaale un baan usoo qaatay laakiin iyaga mid ka midana waa sheegi kartaa qof aanan ka dhawaajin abwaanan ka dhawaajinna waa sheegi kartaa tirano markii lagu yiraahdo dad miisaan la kala dooro way adag tahay dhib badan tahay qofna marka horta qofna yani hal qof oo inta aad rabto kuu buuxinayana ma jiro abaaninta Soomaaliyeed oo dhan qof meel kuu buuxinaya aad iyo hadraawi oo kaleeto markii aad sugaantiisa si fiican u dhaado waxaa arkaysaa dhanka jacaylka oo kale cajiib ku yahay aad u sheekeeyaa heesta beledweyn waxaa waaye qiso socoto waay haddana si taajibal oo macnaha caadi ku taabsiina oo tusi taabsi oo magaaladiina dhex joogta xaaladii ilaa wadadii maxaa leedahay oo ku marsiya sidoo kale abwaan xasan geni oo kale nin deegaanka iyo maxaa leedahay dhaqanka iyo xoolaha iyo markaasi cajiib ku ah waana runtii labadoodu waxay kamid yihiin abwaaniinta aan aadka yani sugaantooda u jeclahay si fiican abwaan barre sidoo kale waa nin yani runtii u doodo maxaa leedahay mararka qaar gabay u leeyahay jiro yani dadka ijaarka ku jiro waxyaabahaas oo kale uga hadlaayo waxaa jiro mid kaloo la yidhaahdo gabay kaloo odayaasha qurbaha maxaa leedahay ka hadlayay marka suugaan kaloo badan oo tiriyo oo heeso badan la qaadan oo jiraan runtii magac cajiiba marka saddexdooda iyo abwaaninta Soomaaliyeed oo dhanba waxaa waaye runtii qofba meel marka ma dhihi karo abwaankaasaan gaar maxaa leedahay u taageertaa ma dhihi karo runtuna saddexdooduba waa labeen mar un waan rajaynayaa hadda waxaa nool abwaan xasan geni allah u barakeeyo iyo abwaan barre waxaa nool abwaan barre maxamed fiido waa nool yahay labadooda waxaan rajaynaa mar inaan noo fariisano labeenta bulshada aan ku marti qaadno insha allah waan rajaynaynaa insha allah intaas markaan kaga soo gudubno waxaa kaloo jirta maansooyinkaa dib u laabanaynaa daawadayaasha waxaan rajaynayaa maansa markay dhammaataba tan kale inay maaragtay isku diyaarinayaan quman iyadu ma ammaana mise waa maxay tahay talo quman waxay tahay intaan kuu sheegin maansada naciiba markii aan tiriyey waa ku qaanooba horta sababta ugu qaanooba waxay tahay magaca naciimo
gabar kasta friends Facebook kuna ama itaqaano ama si fiican markaas suugaanta aragto ila soo xiriirtay waxay tiri niyo anigana maxaa maasi ugu sameeyay magaca Naciimo waa u sameysay keeblay ahaan maxaad anaha ugu sameeyay anigana maaso adiguna magaca waa iska malaaweesh waa iska malaawaalaya marka gabar kasta waxaan dhahay marka adigu waa ka dhigo magacaaga maasada way cuntamayso su'aalo kale igu soo laabtay marka ibraahim marka qof aan aqoonin Facebook kaliya farnaska tiin hatta sawirkeeda u saarneen waxay ku tiraahdo soo amaan dabeecadeeda ma taqaanid muuqeeda ma taqaanid markii ugu horeysa laga yaabaa inay ayadu kula soo hadashay ayadu ku taqaan laakiin adigu aan aqoon qof marka qofka sidaas yani haddii aad tiraahdo amaana maxaad ku amaani kartaa marka waxay leedahay waa xaalad aad u adag runtii qofka yani qofku markuu dabeecad wanaagsan leeyahay asal dhaqateen waa ayaad wax ka samayn kartaa qofku markii aad san hadlin dumarka qaar inay hadlaan uma baahno waa iska quruxdooda wax kasta aad iyo markaas ereyadu iska soo burqanayaan aad iyo aad marka qof aan arkin uji ahaan dabeecadaana aan la dhaqmin ku yiraahday amaan waa aad u adag tahay aad u adkaanaysa marka waxaan siri gabarka Soomaaliyeed si kasta oo amaanto iyo wax kasta ku sheegtaba wali macnaha ma gaaraysid meesha ugu dambayso amaantooda yani ama ma gudi kartid qiimaha maxaa leedahay gabdhaha Soomaaliyeed leeyihiin aad iyo saasirteed marka gabdhiyo dhan haddana la hadlayo marka quman gabar kasta Soomaaliyeed oo ay haddana sababtaan quman u qaadana marka waxaa waaye hadda gabar quman la yiraahdo badna dabcan haday jirto waana nice dabcan magacyo quman way jiraan laakiin ma badna marka Naciimo loo eego ma badna waa runta inaan nagula qabsanaan rajaynayda aad iyo tanna waa taa ku qaanbaxaysid aan kugu daray markii baynu maasida horay uma duubin markii u horeysay waa ku faraxsanahay aniga iyo daawadayaashooda caawayaan jaanis u helno dadka ugu horeeyna noqon insha Allah aad iyo marka maansidu marka waxaan u sheegayaa marka inay amaan kastoon amaano inaan kasal gaari karin marka inaan waaniyo talo siiyo taasaa ku anfacaysa marka ama waa ka dhan tahay talo waxaa la yidhaha qof wax ku siiya waa heshaa laakiin qof talo ku siiya soo maahayn maahmaada noocaas ahayd oo maleeya yacni qof lacag ama hanti ku siiyo waad heshaa laakiin qof talo ku siiyo oo ama ku waaniyo waa dhif iyo naadir saasaan u malaynaa taladu ayadaa wax qiimo badan hanti lagu siiyo daawadayaashaana waan rajaynaynaa waa inoo soo qoraan ayaguna markaas waayahay quman waxay leedahay waa talo iyo dardaaran iyo waana waaya marka waxaan leeyahay quman waxay leedahay qalin iyo waraaqaad bal inaan ka qoro un wax qiimihii iyo siduu heedhe qaabkaagu yahay un ha yeeshee ma helin qaali qowl iyo oraax toonna u dhigmaayo quruxdaada ma laho qofnimadaada qiyaas waan usoo waayay marka waxaan ku intan waa afeef marka yani si fiican gabadhi si kastoon amaan isiri yani wax gabdhaha Soomaaliyeed u qalmeynaan soo waayaha oo wax walba way ka qiimo badan yihiin waxaan leeyahay wax kastoon isiri quurna walow aad ka qaraweyntay talaan lagu qasaarayne hoo waana iga qaad marka waanadu waa nabad anfici doontaa marka waxaan idhi adigoon isqaad qaadin yacni aan qab weynaanin dhanka kalena aan quusin qalbad dhexe ku socahun xad qabtana lahow ruuxda macnaha qof yani meel loogu soo hagaaga laho noqo waxaan idhi dadku qaybo kala jaada weeye ha wada qaadan hana quursan dhamidood qof kastaba intuu gooyo ku qiimee mudnaantiis macnaha dadkoo dhan ma wada ixtiraami kartid ayagoo dhanna de ma wada liidi kartid oo qof kastaba yani marka qofka xataa adiga markaasi ku xumeeya xataa ha ku talax tegin oo intuu kuu jirsado u jirso dunidani ma laha qaayo qofna abid kuma waaro ogsoonow midaas qaali quruxdooda xubnahaaga ha qayixin jirkaaga oo dhan hana qaawin kuwabkaaga timahana qarsoo heedhe ha ka qaadin maradooda maanta waxaan aragnaa bar TikTok la yiraahdo inay jirto oo dumarka qaar disees qaawinba ay u maleeyaan yani inaysan markaasi views helaynin waa meel runtii dhibaata ka taagan waan rajaynayaa inay TikTok gaarto fariintayn waan rajaynaynaa way gaari doontaa waxaan leeyahay khiyaanoola shaydaanku nafta wuu qaribayaa
ha dhegaysan qowlkiisa qarka ayaanu kaa tuurin ha qoynaada dhabankaagu wayse qaado micnahayga salaada iyo khushuuceedu waajib weeye qumaneye qalbigaaga hana goorta qaadir aada la koodayso khushuuc salaada markii macnaha laga hadlaayo salaada hala dukada lama dhigin hala oogaa la yiri mugta macnaha waa inaad xaadir ahaataa markii aad dukanaysa qur-aanka iyo tajwiidkiisa qisaska iyo axaadiista ku qoro intaas laabta qadan ha iska sii daynin waxay ku leedahay kolna qiilal ha u raadin qadcan weeye wuxuu eebbe kugu yiri ha qooraansan qubna weeye taladeeda marka qumanna waa taas runtii waa qof ku damqanaya kaa naxaayo ku naxariisanayo unbaa waana ku siiya aad iyo aad kula taliya qalloocna ku diida runtii waana intaad samaysay quman waa maanso runtii ayaduna asqaraar leh marka waan rajeynaya inaan ku qaanbaxno inaan ku qaanbaxno taladaasna way qaadan doonaan insha allah tiktokna waa gaarsiin doonaa insha allah tiktoka saaxiibo badanaa nagu xiran iyadana way gaari doontaa haddii u sarreeya saamaxo markan bal waa ka nasanaynaa ammaanta iyo ma aragtay talooyinkaas waxaan dib ugu laabanaynaa dhiirigelintii aan dib ugu laabanaynaa maadaama gunaanadkii barnaamijka aynu soo gaarnay gunaanadkana waxaynu ka mid dhigaynaa 2 maansa hadda noo dhiman mid ka mida inay ahaato dhiirigelintaas midda kalena daawadayaasha usii qarin doonaaye waa gaari doonaa taas aad iyo aad maansada la yidhaahdo ogow sahal laguma gaaro bal hordhaceeda iyadana brano ogow sahal laguma gaaro aad yidhahda maansada sida aad sheegtay qof kastoo Soomaali ah wuxuu jecel yahay inuu heer gaaro haddana uma socdo heerkii inuu gaaro qofkii saas waxaan ku leeyahay subax kasta waxaan dhageysanaynaa talooyin dhiirigelin ah motivation aan daaranaynaa suugaan aan dhageysanaynaa dhiirigelin ah haddana markii inoo dhamaato go-aan inta isku hugin aan jiifanaynaa si fiican macnaha wixii waan rabnaa waa jugjug meeshaadi joog laakiin macnaha tusaale ahaan hadda ninka askariga ah Soomaaliga ah inuu la amaano oo ninkaas in bilada la siiyo la amaano oo iska ribiyaa laakiin haddana badanku qaarkood aan dhahno badanku hataa ma dhahayno qaarkood haddana waddada kuma taagno qaar waxaa kay marka qaar qofka bini'aadanka dhiiggiisu waxba la ahayn oo iska dilaayo sida bajaaj leyda waxaa arkaysaa qof iska caadi oo jabboonti tal waqti la iska dilaayo kaleeto askarta laftigooda dhexdooda isdilaayaan in cadowgii kaleba ka suka ayagu maxaa leedahay cadow isku yihiin sidoo kale qof aanu shiikh noqdo iska rabaa la qiimeeyo haddana wuxuu rabaa inuu wixii isku dhex walaaqdo ordo isagu uusan maaragtay yaa wuxuu dadku ka waaninayay inuusan ka dhowrso marka macnaheedu darajadii heerkii ma gaarayo marka qofka uu tiigsanayo kaleeto marka waxaa kaloo jiro siyaasiyiinteena Soomaaliyeed nin kasta wuxuu rabaa in bilada la siiyo Soomaaliya oo soo hooyo guulo soo hooyo intuu qaato marka ayadana meeshii waxaa waaye uma socdo qofkii meel ka sokayso oo 9-ka waxa waaye weligiisba sad bursiimo iyo wuxuu ku jiraa yani inta meesha joogtid waxa waaye bal adigu wax isku maxaan leeyahay isku aad xogaa dameerkii inuu sii dhimanayaad muddaa marka aan isku soo horiyay muhiimaddu waxay tahay qofku inuu horumarka rabo laakiin aan horumarka yani uusan u soconin horumarkana yani silac iyo rafaad iyo loo maro qofku juhdi badan u bixiyo markaas kadib uu gaarayo marka waxay leedahay maansadan gudagalaynaa fayno saalaydi iyo maansadeedu inay sadrigaaga gaarto ayaan ka baryaaya saatir adigu dhageysa saaxib halkiiyo sabadaad hadeerto adigu salka aad ku hayso haddaad ba saluugu weydo ee aad yar ku sii sugnaato adoon wax samaynin aad ah ayaa la afuufi suurka sidaasina waa nusqaan
ka toos jiifka iyo sariirta hadduusan roob ku horo xareeduna ay sabayso misena saaceedu fiilo kob aad lalahaynba sohdin haddaad sahmin ugu dhaqaaqdo sidii dhulfog lagu yaqaanay muddaa loo sii socdaayay ogow sahal laguma gaaro waxaa ka sokeeya howlo macnaha markii tusaale ahaan ogo markii baadiyo ka tagila joogo markii la sahminaayo meel fog markii roob ka doo waqtiga qaataa in maalmo loo sii socdaa laga yaabaa kadib qofkaas uu soo laabto reerkii u raro kadib waa reerka loo caadiya inaad surmi badan dareento adigoo surbacaado waayo amaad noloshaba ku seegto si aad meel sare u gaarto saxriir baa loo maraayay ogow sahal laguma gaaro waxaa ka sokeeya howlo kolkaad suuqyada marayso sidaad tahay ruux sargaal ah inuu ku salaamo uunku hadday sadrigaaga jaal leh adiga sikan qura ku taallo ogow sahal laguma gaaro waxaa ka sokeeya howlo sidaad tahay ruux ah caalim qur-aanka iyo sadaradiisa axkaamta iyo siiradoo dhan u qaybay si aada diinta halkiisana lagu siyaarto sidiisa inaad ahaato haddaad ku riyootay saana ogow sahal laguma gaaro waxaa ka sokeeya howlo waxaa darajow sarreeya adoo xiran suud madow ah dadkuna ku caleema saaray dalkaaga siyaasaddiisa intaad siigada ka qaaddo inaad u jihayso meelsan misana bilad lagugu siiyo ha yeeshee sida xaqiiq ah dhabtii soomaalideennu halkaa weli soo ma gaarin hadeertana uma socdaane allow garansii sinaanta rabow sadbursiin la-aanta halkaas ayay ku egtahay sahal laguma gaaro waa dhinacyo badanee dabcan aad iyo aad ay taabanaysaa dabcan gunaanadkiisaan haddaa sheegnay gunaanadkiisuu gaarnay aad iyo aad maansada aan kusoo gunaanadayno waa jacaylkii hore ma jacayl waa jacayl ruuxeed horta maansadu ibraahim waxay leedahay midaan soo wada jabniyo jaceylkaygii horaa maansadan marka labada sadar u horeysaaba maansada dhan fasiraysa ayaa maansada qeexaysa waa qof isla soo jabteen jacaylka marka dabcan xiriirka jacayl socdo hadalad goor uweyd igu tiriya aada i taabtay sax wuxuu ahaa calafka markaad jacayl dhawr ku jirtid qofku markuu ku yiraahdo calaf maxaad isdhihi jirtay horta qofku markii maxaa la yidhahdaa calaf markii la sheego soomaalidu waxaa la yidhahdaa calafka mararka qaar iyadaaba masabidataba waa garta qofka waxaa laga yaabaa inuu xiriirka kula jiro qofkaasina yacni san mustaqbal adiga inuu kula yeesho uusan rabin marka wuxuu kaaga tegayaa waxay tahay calafanihu ama waxaa waaye ama adigu aad leedahay gabadhii calafaa ishii misaas darteed yaan ku kala waxaa waaye isu haleeli wey si fiican calafka marka inta badan waa la eedeeyaa leedahay ha calafka wax jira waaye laakiin mararka qaar looma dadaalo waxaa waaye mararka qaar gaab iyo khiyaano iyo waxba aa jiro marka qiila laga dhigtaa marka maansidani marka ibraahim waa anigu tabiyaan ka ahay iyo curiye qisadeedu yaraan saaxiibanahay ku dhacday aad iyo haddii marka intaan maansida aan u gudagelin aan ka warbixino ka taabano waxaa jirtay yar isagoo markaasi teenager ah oo aada u da-yar ayuu galab wuxuu la kulmay markaasna dugsiga sare bilaabay wuxuu la kulmay gabar jalbeebta gurigooda joogta hor maxaa la yidhahdaa fadhisa sidii ku bartay lambarkii ka qaatay gabadhuna waa iska da-aadiisa waay isku da marka wiilku markaasi xaaladda wuxuu isaga sugan yahay dad iska reer dad iska liito waaye oo markaasi macnaha
aanan yara Haa. maaragtay dabaqada wax walbo rabo aan markaas aan helaynin dabaqada sare aanan ku noolayn aan ku nooleen aad iyo gabadhuna ibrahim uu agoon iyo rajo waay aad waa xaalad runtii aad u adag haa marka adigu waa isbarteen xiriiray bilaabeen wiilka markaas sanadkii koowaad dugsiga sare uu ku jiriyey waxay ku heshiiyeen inuu wiilku iyo ayadu isguursadaan markii uu dugsiga sare dhammeey marka markaas rabitaankaa laga hadlay si fiican laakiin qorshe kale ma jiro meel wax loo riixa ma jirto ma jirtaa macnaha laakiin sida ay jecel yihiin ay ka hadleen marka isla meel dhigeen marka waxaa dhacday wiilka marka in break nus dollar ama 12 kun la sii jiray hay waxaa la dhihi jiray sambuusi wax ku cun macshar iyo ka Haa. xilliga Marka- iskuulka waasa la cuni jiray Haa. hay marka waxaa dhacday marka ninkaas marka inuu saaxiibadiis uu la soo cuno qabshaxaas waar kadibna uu habeenkii saaxiibtiis uusan la hadlin oo iska seexday wuxuu ka doorbiday inuu biyo caadiya tubada musqusha istuulka ka soo cabo wejigiisa ka soo dhaqdo hay 12 kun waa content city uu kula hadlay iyada oo intuu ku shubto waxaa 4 saac markii la gaaro waxoogaa sintiyaashu ay barakeysmayaan xilligaasna waa runtaa Haa. daqiiqadaha markaasay badan jireen haa aad iyo Marka- xilli waa xilli fogay xilli fog waay hay waa 10 sano ku dhawaad waay aad iyo aad Ibrahim, waa 10 sano meelahaas xilligaas waa la wada gaari jiray Haa. keligood maa kuwaas Marka- kuwaas keligood baa marka waxaa dhacday ayaduna way sugi jirtay oo heerka xilligaas way sugi jirtay ninkan adiga marka xilligaas ula hadlaa habeen kasta ula hadlaa marka habeen kasta marka habeen walba ayagoo isu jeel qabo waxaa waaye lacagta gooda ay rabitaankooda kuma kala tagaan aad iyo aad duruuftaa kala seexinayso mogta marka gabadhan marka saan kuu sheegaba agoon iyo raja ahayd xaafado qarhabay ku nooleed waxbarashana markaasi ayadu private iyo waxyaabaas dhigan jirtay dugsiga dhexe uga hartay waar markii aabaheed dhintay wax ma qabata marka gabadhu asig ninkaasay sugtaa gurigan bay joogtaa haa marka waxaa raacda marka gabadha marka inay reerkeeduna reerka la jirtan ay ogaadaan wiilkan dhalinyarada ah wax buran aan hayn inay la socoto wiilka reerkiisina inuu xiriir leeyahay markay ogaadeen labada dhinacba xoogaa taageer la-aan ay kala kulmeen in caqabad meesha dhan kastaba inay dhahaan niyahow hawshaan hal wiilkii yani inay cidda dhahaan niyahow nin yaraa tahay inaan adiga kugu tacabna rabnaa inaad waxaa waaye mustaqbalka anaga wax noo qabataa rabnaa si fiican dugsiga sare marka uu sheego dugsiga markaa dhammaanaagtan ilinku yan rabaa hawri mugta aad iyo aad markaas jaamacadan aan ku geenaynay dhaheen marka adiga wax ku barno ood shaqayso ood anaga waxna tarto haa kadib macnaha ku ahaato aad sidaas darteed marka kuma suurtagelaysaa la dhahay gabadha maskiinta ah oo agoonta rajada ah oo macquul ma waxaa waaye mustaqbalka ku lumin halu goynin gabdhaas islaameed faraag qaad ciddii gabadhana waxay leeyihiin wiilkaas yare waxba aanan haynin mustaqbalku ma haye waxaa waaye in haddaa rabta xataa anaga ku keeni karnaa nin kale oo markaas diyaar aa keensan kartaa aad iyo aad dhowr jeer oo xataa gabadhii rag kale lala xiriiriyey way ku gacan sayrtay oo macquul ma gaashaankay u daruurtay waa sheekadii ahayd niyad waxaa la yidhahdaa aamina alcamaari haa maniyo ma nooshaha talow mar hore ay ugu dambeysay sax waxay leedahay hees waxaa jirto niyaddu meeshay rabtaa qalbigu ku nagaada haa waxay tiri niyaddu meeshay rabtaa aad iyo aad qalbigu ku nagaaday Hmm. noloshu ay jeceshahay naftaada ku qaaliyey haa waxaad ii tahay nasteexo heestaas cajiibka ahayd ee Ah. macnaa yacni qofku meeshu ku niyadsan yahay meelanan ahayn haa waxaa kaloo lagama dhaadhicin karo waxaa kaloo jirta niyo hees kaloo abwaankaa dhiiri maa la dhihi jiray ma aqaano ma xasuusto magaca saxda hadda laakiin Ah. hees kaloo gayaan kale ma waayini haa kalama waaye gasiinaadan cuni karin Ah. gaajada ma bi'iye gacantaada igu gacantaada u qabo macnaha wuxuu kuu sheegaya yani qof markaad jeceshahay qof kale inuusan kugu dhamin macnaha Ah. muhiimaddu inaad guursataa macna kuma samaynaysa qofkii aad u baahneed qofkaasaad naftaaba qof kale raalli ka ahayd haa aad iyo aad aad iyo aad marka runtii qisadaas waa qalbi taabada haa markii xilligii la gaaray lagu ballamay inay isguursadaan wiilkii uu ku indha adeegay wuxuu yiri gabadha halin guuriyo war bis ciddii nin maxay warkiisa ninkaasi ka sheegayaan waa waxay dhaheen waa nin waa khaldan tahay warkaynan waa diiday dugsi sartaa dhamaysa jaamacaddan galniyo waa lagu adkaystay haa war gabadhiina waxaa la yidhi ayadana shala maxaan ku dhahnay ciddii dhees mogta
ninkaas waxa kuma hayso kuma dhih ah marka adiga ninkii sidii markii wiilka la yiri waxa uu sameeyay waxa waay madaxu jiljalay waa lugtu ruxay هو اسكو داي ها xitaa yani inuu mahar qarsado u qori waayay sababta qofka markaad si dhab u jeceshahay yani inaad si markaasi sharciga saxda ah ka baxsanaad ها ula markaas نفتان macaamil وقولاني ha قلبيان وقولاني wiilka markaas quuso wuxuu yiri gabdhu u laabtay wuxuu yiri saas tirteed ايان waxaan rabaa inaan ku fasaxo yiri anoo ka xun adiga sida mustaqbalka u badbaado dhaha aniga taydu meesha doonta gaarto gabadhi marka way ku borortinkii ku intii ku dhagtay waxay tiri maxaa ilu goysay sida nin go'aan leh oo wax samayn karo marka wiilku in cidiisu u dhiidan tahay asigu ma sheegi jirin waxba okay waa dhigi jirin marka ku borortay maxaa ilu goysay maxaa saas iyo yeeshay waa macnaha way ku cataawda macnaha marka waxay samaysay gabadhi wiilku iska fasaxay wuxuuna waxaa doontay dhaw weey waxa waaye anaa mudan in wax walba igu samayso waa u bareeray sababtoo ah wada kale uma furo ha adiga intaasna adiga adiga ku badbaadinayo atayda iska daayay baan marka gabadhi ugu dambeyn sidii ku kala hareen si fiican waxa dhacday inay gabadhi ugu dambeyn gidaar madaxda dhacday nin kursato aanay xataa xiriir jacayl waqti ila sameyn 2 bilood camal inay shaqeeyeen marsi oo inay xaaladda suuqa baxsato ha dhowr sano kadib marka wiilkii qisadii uu sheekay ay qisadii marka still wali wuxuu leeyahay waan jeclahay idoo nin kale u joogto laakiin duruufo iska jira waxaan rajaynayaa mustaqbalka xataa hadii dhici karto inaan dib madoowna hadda aakhira waa noqotay islaan ayeeya ilaahay cimriga u barakeeyay ayaa markay dadku duceynaysay wax dhigi jirtay barako oo dabada ka cirow warcana waa cimri aad u fog aad ha waqtahay marka malaha ninkaasi wuxuu sugayaa inay macnaha iskala ciroobaan wana waa aqoosiwa waxaan ilaahay uga baryaynaa inay maaragtay jacaylku ugu horeeyana dhib badan yahay qofku inkastoo xiriirro qofku dambe sameeyo guursado markasta qofku uu jeclaaday markasta waxa waaye ugu duwan yahay dadkaas oo kale inta ma xusuuso badanaa meeshaas ku jira inkastoo la yiraahdo niyo labada qof yani jacaylkii hore haddii mar xiriirku dhamaado oo la isku soo laabto yani xusuuso un baa lagu noolaanaa ma ahane sidii hore ma soo noqon qalbi jabaa dhacay yani sidii niyad jab wax walba oo xunaa dhacay moogtahay waxaa la yiraahdaa marka xusuuso un baa lagu noolaanaa macnaha sidii hore xaalku ma noqonayo waana xaalad runtii murugo leh waa gartay maxay leedahay marka jacaylkii marka faano waxaan isiri nin hadii aad ninkaas u maantay oo maansa tiri lahaa maxaa dhihi lahaa iska soo qaad bal ninkaas يعني أوركيسات ضحضي ها وات كهدش ها هي marka masuud waxay leedahay midaan isla soo jabniyo jaceelkaygii horay iyadoo ah jinkayga taanjal beebta ku soo maray macnaha wuxuu ka sheekeynaa sidii la isku bartay bilow ha iyadoo ah jinkayga taanjal beebta ku soo maray judaan arkay taan hablaha darteed u jikaarayay wuxuu ii sheegay in 4 sano ay wada socdeen inuu santaa gabarka la hadlo oo haruufi jiray xitaa soo dalbadaan ha waar judaan arkay taan hablaha darteed u jikaarayay kolkaan yar jaleecsado midaan u jidboonaya mar walba aan arko waa isi cusbaanaahiisa wada macnaha waa si jeclaanay iyadoo nin joogta kale midaan wali jecelahay waa dareen runtii xanuun badan midii jahwareer adduun dartay u jibaaxaysay meeshaasna wuxuu ku caddaynaa in asiga dartiis loo dhibaateeyay gabadha marar badan inaan jees noqono baan runtii u jeclaa ifkee xiriirkii jiray ayaan walow uu jirid adkaa jidgooyona loo dhigiyo waqtigana jallaafay iyo ogow calaf baa jabshay dadkan weli ku jeclaa sidii baa qalbigu ugu jirta ha intaan isla joognay waa adaan ii jiir xumayn misna jaal ii ahaa sidii jaamacad adaa si joogtaa ii wax baray ajiib meeshaana wuxuu ku caddaynaa inuu kaliya qof u jecel yahay ahayn qof nolosha cashiradeeda waqtigeeda ku bartay inay ahayd aad iyo aad waana run qof dabcan xiriirka aad la leedahay wax badan laga bartaa aad iyo aad si fiican waxay leedahay kolkaad ka jaqaaftay ee jiinkayga bannaysay baa qalbigu ijabo ilwaad walow laga jooga 10 go-oo jabraacsan yahay inaan jira caashiq iyo jacayl dawada ma karo macnaha xiriirka kale dhaxtaa sameeyo jabanikaas ha ninkaas aad loo taabtay sagxad uu taabtay wali asagu ma guursan gabadhina waa
way dhaqmaysaa isagiina waa qalbi jabkaas wallahi runtii waa xiriirkaas cajiib u ahaa sidaan ahay ruux xaaladiisu ka sheekeynaa marka wuxuu leeyahay sidaan ahay ruux jin qaba ayaan isla jaam ahoo jidiinkii waan ka tegey jalkuu cuni jira nafluhu cuntadu micnaheedu ma samaysu leeyahay waar waxsaan ka baryaa jaliil qaraar iyo jeer kastaba inaan dib u jaalno oo jaceylkeennii samaa marka la qun u joogsadee jamaad aamiinta iyo ducada ila jiibahay rajo dhig mar uun inaad isku soo noqono aad iyo aad runtii waa cajiib marka maasidii jaceylkayga horena waa kaa ibraahim dhinkaas waa u hadashay yacni marka uu leeyahay maaragtay waxaa laga yaabaa labada qof markay xiriirka in muddaa soo wadeen oo ay kala haraan waxyaabo badan ay kala bartaan waxyaabahaas waxaa ka mid ah ninbaa maalin ii sheekeynayay wuxuu yidhi saaxiibow aniga guriga markaan ka baxayo anaguna labisinayn u baha sax waana tala hadda ku horeysiiyey yaa ku siiyaan yiri sax gabaraan xiriir lahaan jirnay yaa waxay igu tiri midayga ballaqaad hay guriga markaad ka soo baxayso mar walba adoo labisan guriga ka soo baxa waxyaabaha kale oo dabcan xiriirada laga barto yani qof ku dhahaayo ii quruxsanow adoo dhalaalaya soo baxa waa cajiib wax badanaa marka la kala bartaa oo waxaa ka mid a waxyaabahan la isku haadiyey xitaa maaragtay waxaa laga yaabaa in qofku jacaylku waagas u qaado noloshiisa inta ka dhiman inay saamayso ama isticmaalo sito oo hadday ka go-aan suuqa ka doontaa dhici karto marka casharada xiriirada lagu kala bartaay waa ashqaraarkooda iyagaa jaamacaddii ka xeel fogaan dhigi karnaa dabcan jacaylada koowaadna waa sidaas sheegtay runtii raadkoodu ma bo'o ma bo'aha waa haaro dabcan qofka ma aragtay qalbiyadiisa ku yaala inta isjecel allah isku sahlo aamin alena waan aad u mahadsan tahay runtii caawa maansooyinka halka tirisay marka loo fiiriyo muqdisho iyo tii gomaad iyo kuwii dhiirigelinta iyo ammaantii dumarka iyo ma aragtay maansadii ugu dambeysay jacaylkayga hore intuba kalama dhaxaan aad iyo aad inaan caawa ku hor fadhiyo oo aad maansooyinkaas ma aragtay dusheeda ku akhrisan waa ku raaxaystay been allahay waxyaabaha wareysyada aan ugu jeclahay wada sheekaysyadana suugaanta kuubka ah si fiican aad u jeclaa suugaanta marka laga soo gudbo ganacsiga igu xigo qisooyinka ganacsiga waxyaabahaas ma aragtay iyagana aad u jeclaa waan aad u mahadsan tahay waan rajeynaa mar kale inaad na soo booqan doonto reenu aad iyo aad waxaan rabaa in intii aan barnaamij ka bixin dhalinyarada soomaaliyeed inaan halkan fariin ugu diro aad iyo aad si guud dhalinyarada soomaaliyeed si gaarana dhalinyarada reer muqdisho si guud dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay qof kasta horta wuxuu markaasi matalaa ama yacni isuu markaasi ka yahay maxaan leedahay member ama yacni qof mar kasta meel kasta tago matalaa afkiisa iyo dhaqankiisa marka qofku si u barto dhaqankiisana waxaa ka horeysa horta waa inuu afka yaqaano qofku ibraahim afkiisa qofku haddii uusan afka aqoonin dhaqankii inuu wax ka barto adkaanay marka waxaan ku boorin lahaa horta in af soomaaliga la barto af soomaaliga in la barto markii aan leeyahay in la yaabaa laga yaabaa suurtagal ah af soomaaliga marka af soomaaligu inta la moodo waa ka guda ballaaran yahay intaan ku hadalnana maaha soomaaligu jaamacad ma jirinoo muqdisho soo kordhisay kulliyad dhan oo afka iyo aan u malaynayo way jirtaa waana wax lagu farxa runtii in jaamacadihii lagu baranayo afkay aad bay green hope miya ii sheeg jaamacaddan ku tahay aad jaamacadda xaaji baasto ku tahay jaamacaddaas waa bogaadinay mudan tahay waa laga dufcadaha ka baxba cajiib waana u baahnaa jaamacadaha waddanka inay soo kordhiyaan barashadiisa markii afki maxaad baranaysaa inuu muhiim yahay anigu markaan suugaantii wixii dhexan galay markaasaan ogaaday inaan af soomaali badan aqooninba kadib aan af soomaaliga barta intaan ku hadalna in af soomaaligu ahayn ballaaran yahay marka waxaan ilaa horta in afka la barto qoraalka sida loo qoro astaameynta waxaasoo dhan in la barto suugaanta in la barto suugaanta in la barto markaan leeyahay marka ibraahim qof kasta suugaanta yani wuu curin karaa kama wado
laakiin suugaanta in cilmi ahaan loo barto Ibrahim aad iyo aad oo tixi tiraabi leedahay Mhm. tiraabtii oo kaleeto in sheekooyinkii iyo qaabkii loo qoraayay sharciyadoodii iyo waxyaabahaas oo dhan ah markaad barato inaad adiguna sharci ahaanna aad wixii aad u fahamto barato ah laguna raaxaysto qormooyinkaaga markaasi oo qaab farshaxan aad wax u soo gudbiso weliba waxaa jira dad aqoon-yahano ah oo Ha. jaamacado caalami ah iska Ha. badaa kuwa Soomaalida ha kuwa caalamiya waxay ka dhigaan ha suugaanta Mm. Soomaalida ha suugaanta Afrika waxaan ka xusi karaa Professor Cali Jimcaale Axmed aad iyo daawana waa salaameynaa Professor aad u jeclaa markuu Mm. sheekaynayo ha aad ku raaxaysanayso sheekooyinkiisa Aad iyo aad. kubadiis Mareykanku joogo jaamacad Mareykanku yaalo wax ka dhiga Professor marka afkii yaqaano suugaantii yaqaano oo cilmigaasna deeqsiin karana way joogaan Ha. oo ilaa laga faa'iideysto insha Allah inayna marka in saas loo barto aad iyo aad. dhankii tiraabta waa taas dhanka suugaantana hala barto markaan leeyahay waxaan ka wadaa suugaantu waxay leedahay xaraf raac iyo habdhac miisaan waxyaabahaas oo dhan ay leedahay ah marka ugu yaraan waa inaad qofka maansada tirinayo godka oo maansada ka tirinayo iyo xarafka oo isticmaalayo waa inaad taqaanaa intaas marka aad fahamtid waxaa kuu fududaanaysa inaad maansada markaas inteeda kalena aad fahamtid aad fahmaysid laakiin mararka qaar gabay hadal leh waaye inaa maxaa leedahay Inaad waxaa waaye kusoo koobtid. kusoo koobtid waa sax ma qofkiina aha. fariintiisii kugu duxoweyso ha way dhib badan tahay ha aad iyo aad taas guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed markasta joogaan waxaan leeyahay afka iyo dhaqanka hala ilaaliyo iyo suugaanta hala barto hala ilaaliyo dhalinyarada hal abuurka ee suugaanta curiya reer Muqdishona midaan leeyahay marka aad la sheekaysato waxay ku leeyihiin aniga qofna dhiirigeliya ma haysano dadkan Muqdisho jooga ama koonfurta jooga suugaanta ma qiimeeyaan waxaa waaye markaas saas darteed waxa weyn ma samayn karno aad iyo aad intii awoodeena ha ilaa hadda horta inkastoo wareysiyada dhanka suugaanta adiga waxaa ka horreeyay dabcan dhowr abwaan sax waxaan kasoo bilaabayaa nin la yidhaha alnuurshiine aad iyo aad cajiib ah waxaan u malaynaa hadda galmudug inuu ku dambeeyaan jeclaha ha saaxiibkee waxaa ku xigay cabdicasiis mucjis aad iyo aad oo asna ashqara maansooyin cajiib ah tiri Mm. adigoo caawa marti noo ahaa barnaamij kaloo asna suugaan ku saabsan oo qabanay waa u jiray oo waxaan ka qabanay saalax naaleeye Mm. saalax naaleeye asna dab yar bashido ha annaga laftigeenna intii awoodeena ha dhalinyarada hal abuur kale oo weliba ereyadoodu cajiibka yihiin oo Mm. miisaanka culus Mm. hadda dadka qaaraa da'dooda iyo ereyadii tuuraa isma laha isma lahan aad iyo aad waxaan ku hanweynaa inaan azuuno halkan keeno waan rajaynayaa in rag badan oo suugaanta curiyo reer Muqdisho iyo ama qofkii markasta xitaa Muqdisho yimaado ee kan show hela inuu maxaa leedahay inta kasoo muuqdo in Ah, halkan diyaar lagu ah casuumo. inaan marka marka cidna dhiirigelisa ma lahan ay leeyihiin Ibrahim dhiirigelintu horta waxay ka bilaabataa qofka gudihiisa ka bilaabataa aad daata meel istaagtaa tiraahdo cid dhiirigelis ma haysto ma jirto waxaa waaye cid ku karab qabanaysa male markaad gacanta taagataa gacanta lagaa qaban karaa mugta aad marka waxaan dhihi lahaa ayagu horta inay isu yimaadaan iska kooxaystaan bandhig suugaaneedii qorshaystaan habeenka jaceylka oo kaleeto dhiirigelinta mar qaar marba ha dhowr qof waxaa laga yaabaa 4 ama 3 nin oo suugaan dhiirigelina mid kastaba sameeyey inay isu yimaadaan ay habeenka dhiirigelinta oo kale sameeyaan habeenka jaceylka habeenka marba si wacyigelin ha markaas waxay sameyn karaan haddii xataa markaas aysan qarashaan aysan awoodin shirkadaha weyn ay ka tegi karaan waxay dhihi karaan barnaamijkaas rabnaa adigana xayeysiina idiin noqoto ha oo waxaa waaye boorka iyo waxyaabahaas oo dhan aan ku xusno aad xariiriyo mar kastaba ha idin xuso gacan qabashana anaga noo ahaato ujeedkeena aan ku gudubsan iyaga laftigooduna way ku nafisayaan Ha, ha. hadii macnaha inta dhalinyaradii isku yimaadaan oo mid walbo ha uu ka tuuro cashiradaas laga yaabaa inay ayaga laftirkooda ay dhiirigelinta inay wax weyn ka bedesho qorshahooda iyo maxaa leedahay noloshooda dhan fikirkaas cajiib oo loo baahan yahay wax yaraan kaa dhex galaya igan raalli noqe boorama anagu joogna waxaan xasuustaa warsamo shiidley warsamo cumar xuseen hadda kanada uu joogaa in saaxiibkay aada u salaamaya hal abuur maare maare asagana dabcan wadanka waan ku ogaa laakiin beryahan dhaqdhaqaaqiisii ma arko sax waxaan u malaynaa inuu isna qurbaha aaday inteenaasaan ka xasuustaa waxaa isugu imaan jirnay marka hotel la yidhaha haldoor oo magaalada boorama ku ku yaala maqribadii ama galbihii meelahaas marka nin walba maansoo soo tuuraa markaasoo qiso dhax ka siiyaa intaas yaraa annaga waxay noo tahay ha nafis nafisadeeda inta ninba maraa la dhegaystaa marka ha marka hadda qorshaha hadda sheegaysa waa cajiib fikradda ay dhalinyaradu u baahan tahay wa oo aad runtii iyaguna way ku nafisi lahayn bulshadana way ugu faa'iideyn aad iyo aad
si fiican taas marka waa dowladda laftigeedana in loo baaqo way ku qurux badnaan Ha. si dhalinyarada maaragtay madal ugu sameeyaan oo lagu sameeyana dadka kale xitaa mashquulin lahayn mugta dadka siyaasad ku waashiniyo midadaal loo baahan yahay marka qaar midadaal loo baahan yahay ah dadkii in la jiheeyo dhanka siyaasadda laga soo weeciyo marka qaar marka dhalinyaradaas in la dhiirigeliyo fikirkaas runtii waa fikir aad u cajiib ah marka macnaha inaysan marka waxaan ku boorin lahaa inaysan dhihin in dhiirigeli samaysano in ayagu horta dhaqaaq sameeyaan waxaa waaye ay kacaan fariintaada waxaan rajaynayaa inay iyagana gaarto insha allah cidda ku shaqada leh ama ha noqoto wasaarad ama ha noqoto maamul gobol ha noqoto inay bal wax ka qabtaan dhalinyarada si isku keenaan ay ka jawaabaan arrintaas iyada ah fariintaasna runtii way gudbi doontaa haddii sarreysaa maxu dardaarankii ka horreeyeyna waan rajaynayaa in la qaadan doono oo afka iyo maaragtay dhaqankeena inaan anagu ilaalino qof kasta waajib uu ku yahay haddaa ma dhalinyaro ah madna qof weyn ahaw ma kastaba qof adigaa matalaya aad iyo aad waana adaa umaasan tahay mar kale iyo malaayin jeer caawa ina maaragtay halkan marti noogu tago naga ajiibto maaragtay codsigeenii waa kaaga mahad celinaynaa barnaamijyo kalena dabcan waa sidan lagu sheego waa soo imaan doonaa insha allah mar kale mahadsanid adigaa mudan saaxiib aniguna sharaf ii tahay inaan caawa labaynta bulshada kusoo muuqdo oo mahadsantaa mar kale saaxiib aad iyo aad saaxiib yaal intaas ayaan kusoo gunaanadayaa labaynta bulshada oo marti noogu ahaa saaxiibkay yaxye axmed yuusuf oo loo yaqaano buug yare yaxye waa hal abuur dabcan sugaan kala jaada ayuu tiriyaa sugaantiisa qayb ka mida ayaan caawa soo qaadanay dhammaantood ma aanan soo qaadan laakiin waan rajaynayaa xalqado kale inaan ku casuumi doono oo sugaan intan ka qaraweyn oo maaragta halkan nagula wadaagi doono waan rajaynayaa sugaantii caawa halkan uu ka tiriyey dhammaantood inay ku xiise geliyeen qaybta faallada ee nagula wadaag intii sida gaarka ku taabatay adiga haddii aad hore noola joogtay waan kaaga mahad celinaynaa inaad saaxiib nala tahay haddaad nagu cusub tahay nagu soo bir tan iyo kulan muuqaalkeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo